بسم الله الرحمن الرحيم وهذينما أربعة أو قميص أي سوق رئيسه سقالية طبان كبيشة مارج سنة كلا بكون لباتن يشن أو كبعجن سقالية طبان كبيشة رمضان سنة كون أفر بقول أفرتن يلح تاريخ ده هجرية ده كسو دوادا مركلة يبرامج كي قبناها أو أن إذا كوسو قد بينينه ورركي يدعدوي كي وجود بيئة عالم ككدعي ساعده لصوت رافي إلى يو دقيقة qodobada barnaamijka aan idin kugu haynana waxaa ka mid ah militariga Israa'iil oo bilaabay in ay gudaha u galaan marinka Gaza iyadoo guutada Gifati oo dagaaladii hore si xun loogu galay loo xil saaray bilowga duulaankan cusub dhinaca kale Israa'iil ayaa xoojisay duqeynta xagga cirka dhulka iyo badda goordhaweedii ka badan 10 qof ayaa lagu dilay tareentaasi ka badanna waa lagu dhaawacay xilli dadkaasi ay ku hawlanaayeen aaska dad ku geeriyooday duqeyntii ugu dambeysay xamaas oo sheegtay in riyada Israa'iil ee ah in dadka reer Falastiin la barakiciyo aysan hirgeli doonin halkii ay ka qaxi lahaayeen dhulkoodana ay abaari doonaan masjidka al-Aqsa Donald Trump oo mar kale hadallo goodis ah iyo dignina u jeediyey Xuutiyiinta iyo Iiraan iyadoo caawana duqeymo kale Mareykanku uu ka geystay waddanka Yemen tahriibayaal ku dhintay iyo kuwa kale lagu leeyahay xeebaha Talyaaniga kadib markii doonidii ay ku safrayeen ay ku qaraqantay badda sidoo kale barnaamijka waxaan idinkugu haynaa Yargının kendi içerisinde hak arama yolları sonuna kadar açıktır. Adaletin waa wasiirka cadaaladda Turkiga oo cadeeyay in dacwad dambiye culus ah lagu soo oogay duqii magaalada Istanbul dhinaca kale barnaamijyo lagaga soo horjeedo yargının kendi ayaa ka dhacay magaalada Istanbul jawigu galabta sidan ayuu ahaa sidoo kale barnaamijka waxaan ku eegi doonaa Eritrea oo si adag uga jawaabtay eedeyn uga timid Ethiopia arrintan oo ka hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Eritrea sheekada ugu dambeysay barnaamijka idinkugu hayaana waxay ku aadan tahay mid ka mid ah madaxda shirkad laga leeyahay dalka Shiinaha oo dacwad lagu soo oogay kadib markii uu ku kacay fal musuqmaasuq ah oo aad loola yaabay dhammaan qodobadan iyo kuwa kale oo faahfaahsan iyo wixii war ah ee soo kordhay intayna hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka qubanaha shirkadda dhismaha guryaha ee Fiqi iyo dabaqa Daylight fooq aad u dheer oo farta haatan laga jaray oo meel fiyaala afiqi ay ka taagtaan farta kuugu fiiqaye ila fiiri nuurka iyo fiyooraha iftiinka leh waa dabaqa Daylight ee shirkadda Fiqi ay farta haatan ka qaaday iyo fursad aad u qaaliya shirkadda dhisidda iyo iibka guryaha ee Fiqi ayaa idinla diyaara guri ku habboon nasashada iyo raaxada dabaqa casriga ee Daylight oo ka kooban 8 bayaano ayaa lagugu hayaa guri waasaca oo VIP standard ah kaasoo ka mid ah guryo si gaar ah loogu diyaariyey dadka madaxda ah iyo dadka kale ee doonaya inay Nairobi ka helaan guri u qalma oo ay aad ugu raaxaysan karaan gurigu waxa uu ka kooban yahay 6 qol oo waaweyn iyo 2 qol oo yaryar iyo 3 jiko waana guri aad u waasaca oo dhul weyn laga dhisay lehna wiishu gaar ah loona dhisay qaab gaar u ah guryaha VIP-da oo loo sameeyay habka guryaha casriga loogu talagalay ee iftiiminta waxaana uu ku dhex yaala dabaqa casriga ah ee Daylight xaafadda Backlandis faafahin dheeriya la xiriir telefoonada shashada kaaga muuqda soo dhawaada markale daawadayaal si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan uga xirnayn ku soo biir waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka caawa waxaynu ku bilaabaynaa dalka Turkiga halkaasi oo ay ka taagan tahay xiisad dhanka siyaasadda ah tani waxay ka dambeysay kadib markii xabsiga loo taxaabay duqii magaalada Istanbul ninkaasi oo loo badinayay in uu noqon karo ninka madaxweyne Erdogan kula loolamay kara doorashada la filayo inay ka dhacdo dalka Turkiga sanadka 2028 ninkan ayaa la sheegayaa in labadii doorasho ugu dambeysay ee dhacday uu ka guuleystay xisbiga Erdogan ee AK Party laakiin dacwado waaweyn oo adag ayaa lagu soo oogay haddaba aynu eegno arrintan iyo wararka ugu dambeeyay iyo weliba barnaamijyo ka dhacay dalka Turkiga maanta warbaahinta Turkiga ayaa ku waramaysa in wasiirka cadaaladda ee dalkaasi Yilmaz Tunç
oo shaaca ka qaaday in duqa magaalada Istanbul Ikram Imamoglu maanta laga qabtay gurigiisa iyadoo lagu soo oogay 2 dacwadood oo ah musuqmaasuq iyo caawinta urur argagixiso. wasiirka cadaaladda ee Turkiga ayaa farta ku fiiqay in duqa magaalada Istanbul aroornimadii maanta laga qabtay gurigiisa, waxaana intaasi uu ku daray in qofna aanu ka sarreyn qaanuunka uuna ka mid yahay dadkaasi duqa magaalada Istanbul. waxa uu sheegay in baaritaanka uu socdo isla markaasna arrintan uusan shaqo ku lahayn madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. waxa intaasi ku daray in dastuurka Turkiga ay ku caddahay isla markaasna maxkamadaha iyo garsoorka dalka ay ka madax bannaan yihiin cid kale. Tunç waxa intaasi ku daray in booliisku sidoo kale ay xireen ilaa iyo 100 qof oo lala xiriirinayo musuqmaasuq iyo laaluush, wuxuuna carabka ku adkeeyey in maxkamadaha Turkiga ay yihiin kuwo madax bannaan iyadoo cid walbana qaanuunka hortiisa ay imaanayso. war ka soo baxay xafiiska xeeraalinta Istanbul ayaa lagu tilmaamay in Imamoglu uu ku lug lahaa musuqmaasuq iyo handadaad, laguna tilmaamay inuu yahay hogaamiye koox oo danaysta ah. haddaba aynu daawanno wasiirka cadaaladda dalka Turkiga oo shir jaraad ku qabtay magaalada Ankara oo ka hadlaya dhacdadan. Yargının kendi içerisinde hak arama yolları sonuna kadar açıktır. Adaletin sida ay warisay wakaaladda wararka dalka Turkiga ee Anadolu, 7 qof oo ay ku jiraan duqa magaalada ayaa lagu eedeeyay argagixisnimo iyo taageeridda xisbiga shaqaalaha ee Kurdistan ee PKK oo ururkan ka mamnuuca dalka Turkiga. dibadbaxayaal ayaa isugu soo baxay xarunta weyn ee booliiska ee magaalada Istanbul, waxaana ku mudaharaadayeen ama ka soo horjeedaba xariga Imamoglu oo xubin ka ah xisbiga mucaaradka jamhuuriga ee dadka ee magaciisa loo soo gaabiyo CHP. dadka mudaharaadii ayaa ku dhawaaqayay erayo ay ku taageerayaan duqa magaalada iyagoo dhaleecaynaya dowladda. Bunti Gultein oo ka mid ah dibadbaxayaasha ayaa waxa uu yiri hadda waxay afgabi ku hayaan Imamoglu oo 4 jeer ka guuleystay Erdogan tan iyo 2019 isagoo helay buu yiri rabitaanka shacabka. booliiska rabshadaha ka hortaga iyo baabuurta biyaha laga tuuro ayaa la dhigay jidadka ku dhow xarunta booliiska, iyadoo gudoomiyaha xafiiska Istanbulna uu mamnuucay in fagaarayaasha la iskugu yimaado muddo 4 maalmood ah. Ikram Imamoglu oo 54 sano jira ayaa waxaa la filayaa in uu isu soo sharixi karo doorashada, laakiin waxa la leeyahay haddii lagu helo dambiidan lagu soo ogay siyaasadda waxaa laga mamnuuci karaa 5 ilaa 10 sano. jaamacadda Istanbul ayaa talaadadii laashay shahaadadiisa waxbarashada, taasi oo caqabad ku noqon karta hamigiisa bacdama xilka madaxweynaha Turkiga dastuurka uu dhigaya inuu u tartami karo qof haysta shahaado jaamacadeeda. xisbiga CHP ayaa xarigiisa ku tilmaamay afgembi rayid ah, iyadoo wax yar ka horna la sheegayo in banaanbaxyadu ay bilowdeen. waxaana sidoo kale arrintan ay ku soo beegmaysaa iyadoo maalmo uun kadib loo baahan yahay in xisbiyada ku dhawaaqaan musharaxiintooda. xisbiga ayaa ugu baaqay taageerayaashiisa in iskugu yimaadaan xafiisyada, waxaana la sheegayaa arrintan inuu ku dhawaaqay gudoomiyaha xisbiga CHP Özgür Özil oo cambaariyey xariga Imamoglu oo yiri waa afgembi la doonayo in laga hor istaago rabitaanka shacabka musharaxii xilka kula tartami lahaa madaxweyne Erdogan. xiisadda dhanka siyaasadda ayaa xawli u socota iyadoo xisbiga mucaaradka ee CHP loo arko una arkana xariga Imamoglu inuu yahay carqalad lagu doonayo in tartanka siyaasadda lagaga reebo. madaxweyne Erdogan oo muddo dheer xukumayay Turkiga ayaa wajahaya caqabado gudaha oo ay ka mid yihiin hoos u dhac xagga dhaqaalaha iyo mucaaradad uga imaanaysa xisbiyada siyaasadda. wixii warar ee arrimahan ay ku soo korana barnaamijyadeena soo socda ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. xagga Afrika aynu qoraansan haatan arbihii la soo dhaafay xiisad dhanka siyaasadda iyo colaad inay ka dhex qaraxdo ayaa si weyn loo hadalhayay wadamada Ethiopia iyo Eritrea. haddaba dowladda waddankaasi Eritrea ayaa si adag uga jawaabtay eedayn uga timid dalka deriska yihiin Ethiopia. Yahya Ciise ayaa warbixin amurahan ku aadan soo jeedinaya. wasiirka arrimaha dibadda Eritrea Ismaan Saalax ayaa beeniyay eedeymaha sheegaya in Eritrea ay diyaar u tahay dagaal cusub oo ay la gasho Ethiopia. waxa uu xusay in eedeymahaas ay salka ku hayaan dana siyaasadeed oo la doonayo in mas'uuliyadda dhibaatada gudaha Ethiopia la saaro Asmara.
wasiirku waxa uu shir jiraayad ku cadeeyay in eedeymaha ugu muhiimsan ee loo jeedinayo dalkiisa ay la xiriiraan xasilooni darro gobol iyadoo la sheegayo in Eritrea ay isku diyaarinayso dagaal ka dhan ah Itoobiya. waxa uu sidoo kale xusay in eedeymaha ay taabanayaan heshiiskii Pretoria ee dhex maray dowladda Itoobiya iyo jabhadda Tigray iyo sidoo kale hadal ku saabsanaa hamiga Itoobiya ee ku aadanaa helitaanka bad. Saalax waxa uu eedeymahaas ku tilmaamay isku day lagu doonayo in Eritrea loogu eedeeyo mushkiladda gudaha Itoobiya xilli Addis Ababa ay la tacaalayso caqabado waaweyn oo siyaasadeed. marka la eego dhaqdhaqaaqa ciidamada Eritrea ee dhulka Itoobiya, wasiirka arrimaha dibadda Eritrea waxa uu cadeeyay in ciidamadoodu ay si buuxda uga laabteen xadka caalamiga ah ee la aqoonsan yahay kadib markii dagaalku u dhamaaday bishii November 2022. waxa uu sheegay in eedeynta ah in ciidamadoodu wali ay joogaan gudaha Itoobiya ay tahay been abuur ay faafinayaan xubno ka tirsan jabhadda xoreynta shacabka Tigray ee TPLF, kuwaas oo horey uga hor yimid go'aankii guddiga xalinta xuduudaha Eritrea iyo Itoobiya, go'aankaas oo ay si buuxda u aqbaleen labada dhinac. wasiirku waxa uu sheegay in Eritrea aysan u arkin naftooda inay tahay dhinac ka tirsan heshiiska Pretoria, sidoo kalena aysan rabin in ay farageliyaan arrimaha gudaha Itoobiya. waxa uu eedeymaha Eritrea lagu xiriirinayo ee heshiiskaas ku tilmaamay wax laga been abuurtay, isagoo carabka ku adkeeyay in dalkiisu uu diidan yahay in si kasta loogu soo dhex daro khilaafka gudaha Itoobiya. marka laga hadlayo rabitaanka Itoobiya ee ah inay hesho marinbadeed, Cismaan Saalax waxa uu muujiyay yaab ku saabsan sida Itoobiya ay wali ugu taagan tahay arrintaas, taas oo ku tilmaamay fikir duug ah oo aan suurtagal ahayn. wasiirku waxa uu cadeeyay in Eritrea ay si adag u diidan tahay isku day kasta oo lagu waxyeeleynayo xasiloonida gobolka ama lagu xadgudbayo madaxbanaanida dhulkeeda. waxa uu beesha caalamka ugu baaqay in cadaadis la saaray Itoobiya si ay uga tanaasusho hamigaas, maadaama uu khatar gelinayo amniga iyo xasiloonida Geeska Afrika. wasiirka arrimaha dibadda Eritrea waxa uu xusay in dowladdiisu ay ka go'an tahay xalinta khilaafaadka gobolka iyadoo la adeegsanayo wadahadal is-afgarad, isaga oo diiday tallaabo kasta oo military. waxa uu hoosta ka xariiqay in Eritrea ay rabto inay xoojiso xiriirka ay la leedahay dhammaan dalalka gobolka si ay gacan uga geysato nabadda iyo xasiloonida gobolka. Yaxye Ciise. haatan waxaynu eegaynaa war degdeg ah oo hadda soo dhacay. mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa waxaa la sheegayaa inay warbaahinta la wadaageen warbixin sheegaysa in gebi ahaanba ciidamada dalkaasi Ukraine ay iskaga baxeen gobolka Kriski oo dagaalla ay ka aloosanaayeen 7 bilood ee la soo dhaafay. gobolkan wuxuu ku yaalaa galbeedka waddanka Ruushka. bishii Agost ayaa ciidamada Ukraine gudaha ay galeen halkaasi, waxaana la sheegayaa in toddobaadyada la soo dhaafay dagaallo culus halkaas ay ka socdeen. ciidamada Ruushka waxaa la sheegayaa inta badan inay cagta mariyeen ciidamada Ukraine. boqolal ayaa la qabtay sida wararku ay sheegayaan, laakiin haatan warkan degdeg ah ee soo dhacay ayaa sheegaya in markaasi ciidanka Ukraine halkaas ay iskaga baxeen. waxaana tan ay ku soo aadaysaa iyadoo goordhow wadahadal qadka telefoonka ay ku yeesheen madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo weliba madaxweynaha waddanka Ukraine Zelensky. wixii wararka ee arrimahan ay ku soo kordha barnaamijyadeena soo socda ayaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii alla idmo. xagga Talyaaniga aynu eegna haatan waxaa lagu soo warramayaa in mashaqo kale oo la xiriirta tahriibta halkaas ay ka dhacday. haddaba warbaahinta waddanka Talyaaniga ayaa waxa ay sheegaysaa in dooni ay ku qaraqantay agagaarka jasiiradda la yiraahdo Limboyane oo ku taal badda Mediterranean-ka. doonidan ay saarnaayeen dadka tahriibta ayaa waxaa la sheegayaa in ay saarnaayeen dad Afrika ka yimid oo ku socday dhanka Yurub. hay'adaha ammaanka dalka Talyaaniga ayaa badbaadiyey 10 tahriibayaal ah, iyadoo warku intaasi ku darayo in dhowr qof la la'yahay. waxaana la sheegayaa ugu yaraan 6 qof inay dhinteen. dadka la la'yahay ayaa tirada waxay dhan tahay 40 sida ay ku warramayso wakaaladda wararka ee ANSA ee laga leeyahay dalka Talyaaniga. doonidan ayaa ciidamada xeebaha ee waddanka Talyaanigu waxaa la sheegay shalay galikii dambe ay ka war heleen, laakiin intii aysan u dhowaan ayaa doonidii ay qaraqantay, waxaana ay ku qaraqantay meel ku dhow jasiiradda la yiraahdo Lambione. kadib masiibadan 10 qof ayaa la soo badbaadiyay, kuwaasi oo ka koobnaa 6 rag ah iyo 4 dumar ah, halka meydadka 6 qofna biyaha laga soo saaray. dadka la badbaadiyey oo loo qaaday jasiiradda Lampedusa ayaa ka sheekeeyey waxa ay arkeen, waxaana ay sheegeen in axaddii ay ka soo amabaxeen magaalada Safaaqis ee Tunisia iyagoo saarnaa dooni yar oo caag ka samaysan. muddo 24 saac oo ay safar ku jireen
ayaa waxaa la sheegayaa in biyaha caalamiga markii halkaasi doonidu ay maraysay ay hirar xoog leh helaan taasi oo keentay dad badan inay badda ku dhacaan warbixino hordhac ayaa tilmaamaya in tahriibayaasha ka soo sudcaaray magaalada Safaaqis 16 bishan Maarso tiradu ay ahayd 56 marka xiisada aan eegno ka dhex caloosan xuutiyiinta Yaman iyo Mareykanka Donald Trump ayaa mar kale caawa waxa uu soo saaray hanjabaado iyo cagajugleen uu jeedinayo Iran iyo xuutiyiinta haddaba wakaaladda wararka ee AP ayaa soo tuurtay in Donald Trump fariin uu ku qoray baraha bulshada waxaana uu sheegay in xuutiyiinta la gaarsiiyey wasaadalka u dhigaya qasaare culus isla markaasna xaaladooda si tartiib ay u sii xumaan doonto wuxuuna ku hanjabay in ay ciribtiri doonaan xuutiyiinta Yaman waa sida uu hadalka u dhigay wuxuu intaasi ku daray in xuutiyiinta had iyo goraale lagala kulmi doono weerar haddii aan laga hortigin wuxuu sheegay in Iran ay taageerto isla markaasna waxa uu sheegay in loo baahan yahay in laga hortago taageeradaasi madaxweynaha Mareykanka ayaa ugu baaqay Iran inay si degdeg ah u joojiso dirista hubka xuutiyiinta isagoo xusay in Iran ay weli si weyn u taageerayso xuutiyiinta inkastoo uu yiri taageeradu way ka yartahay sidii hore Iran arrinkaasi waa ay beeninaysaa dhinaca kale warbaahinta xuutiyiinta ayaa caawa shaacisay in ciidamada in caasimadda Sanaa ay caawa marka la kulantay weeraro uga imaanaya dhanka Mareykanka sidoo kale warbaahintu waxay sheegtay in duqeymo kale la beegsaday hareeraha magaalada Sanaa ee caasimadda ah oo ku taal waqooyiga dalka Yaman sidoo kale diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ayaa weerar ka fuliyay degmada Al-Sawaydiya ee gobolka Al-Bayda sida ay sheegeen ilo wareejada xuutiyiinta saraakiil Mareykan ayaa sheegay in howlgalka militariga ka dhanka xuutiyiinta uu socon karo toddobaadyo kadib weerarada Mareykanka xuutiyiintu waxay ku dhawaaqeen in ay beegsadeen markabka dagaal ee Mareykanku uu leeyahay USS Harry Truman iyagoo 4 mar weeraray muddo 72 saacadood oo kaliya xuutiyiinta ayaa sidoo kale shalay waxay gantaal ku soo tuureen Israa'iil iyagoo sheegaya in ay gantaalkaasi ku beegsadeen saldhigga ciidamada cirka ee Navatim xaaladda ayaa waxa la sheegayaa inay ka sii darayso saacadda ka dambeeya waa tahay waxaan u gudbi doonaa goordhow wararkii ugu dambeeyay ee arrimaha Gaza Israa'iil oo militarigeeda caawa ay ka bilaabeen marayka Gaza howlgallo dhanka dhulka ah iyo Xamaas oo war culus soo saartay iyo qodobo kale laakiin intaan u gudbin dhammaan macluumaadkaasi aynu ku hakanno qadar haysiina inta aanan u gudbin wararka Gaza la xiriira iyo dhanka Israa'iil waxaynu eegaynaa in ka badan 50 maalmood ayaa Israa'iil waxay ka wadaa howlgallo daanta galbeed ee dhulka Falastiiniyiinta ee la haysto xerada qaxootiga ee Jinin dad boqolaal ah ayaa ka barakacay oo Israa'iil ay qaxisay guryahoodii ayay burburisay goobihii caafimaadka ayaa sidoo kale la sheegaya Israa'iil inay caqabad ku noqotay adeegyadii iyo kaabayaashii bulshada sida wadooyinka ayay burburisay Israa'iil baalayaashii ama korontada ayaa sidoo kale la burburiyay waxaa kaloo la sheegayaa biyihii xitaa iyo qasabadihii inay burburisay Israa'iil haddaba warbixin arrimahan ku aadan iyo waxa ka socda daanta galbeed waxa warbixintan ka diyaarisay soo jeedinaysa wariyahayaga Dhibca Cabdikariin Timacade ciidanka Israa'iil ayaa sii waday howlgalladooda magaalada iyo xerada qaxootiga ee Jinin ee daanta galbeed ee la haysto 58 maalmood oo xiriir ah iyagoo burburinayo guryo gubaya una bedelayo kuwa kale iyo saldhigyo ciidan subaxnimadii Arbacada rasaas culus oo toos ah ayaa laga maqlay gudaha xerada qaxootiga ee Jinin iyo sidoo kale qaraxyo ay fuliyeen ciidamada Israa'iil sida ay sheegtay wakaaladda wararka Falastiiniyiinta ee Wafa lagu magacaabo ciidamada Israa'iil ayaa xoojiyay joogitaankooda iyo howlgalladooda military iyagoo u wata taangiyo iyo cagaf-cagafyo gudaha xerada qaxootiga ee Jinin halka ay sidoo kalena sii wadaan burburinta ballaarinta jidadka iyo dhisidda wadooyin cusub oo ku dhex yaala xerada ayay tiri wakaaladdu waxay sidoo kale intaasi ku dartay in muddada 58 maalmood ahayd ay Israa'iil ku xirtay ku dhawaad 227 qof oo ka tirsan rayidka Jinin iyadoo filisay daraasiin baaritaano ah dowladda hoose ee Jinin waxay xaqiijisay in ciidamada Israa'iil ay 100% burburiyeen jidadka xerada iyo qiyaastii 80% jidadka magaalada Jinin halka ay barakaceen dadka ku noolaa 3200 oo guryo oo ku yaala xerada habeennimadii xalay ciidamada Israa'iil ayaa dib qabasiyay guryaha ay leeyihiin dad rayid ah oo ku yaalay agagaarka diiwaan al-Saadi ee gudaha xerada iyagoo sidoo kale dhagxaan ku gooyay wadada gashay isbitaalka dowladda ee laga soo galay xerada qaxootiga warbixintu waxay hoostay in weerarada Israa'iil ay ka socda magaalada iyo xerada Jinin ee muddada 58 maalmood ah
ay sababeen dhimashada 34 qof iyo tiro kale oo badan oo dhaawac ah iyo dad rayid ah oo la xiray. waxaa xusid mudan in gudoomiyaha Nablus Qazan Daqlas uu xaqiijiyay in ciidamada Israa'iil ay qoysaska ka barakiciyeen xirada Al-Ayn. waxa uu sheegay in howlgalka military ee ciidanka duulaanka ah uu weli ka socdo xirada qaxootiga Al-Ayn oo galbeed kaga beegan Nablus, taasi oo keentay in la dilo wiil dhalinyaro ah, la dhaawaco tiro dhalinyaro ah, qaarna la xiro, iyaga oo laga fuliyay howlgallo ballaaran oo baaritaano ah gudaha xirada. ciidamada Israa'iil waxay qoysas badan ku qasbeen inay ka baxaan guryahooda oo ay tagaan xirada. waxaana Daqlas xusay in duulaanka lagu qaaday xirada Al-Ayn uu curyaamiyay hanaanka waxbarashada, gaar ahaan dhanka galbeed ee Nablus, maadaama xiradu ay ku taalo albaabka galbeed ee magaalada. wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ayaa ku dhawaaqday in 70 Falastiiniyiin ah lagu dilay daanta galbeed tan iyo bilowgii sanadkan. rabshadaha ka socda daanta galbeed ayaa sare u kacay tan iyo markii uu qarxay dagaalka xasuuqa lagu sifeeyay ee Gaza 7 bishii Oktoobar ee sanadkii 2023. sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka Falastiiniyiinta, ugu yaraan 885 Falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay daanta galbeed ee la haysto tan iyo taariikhdaas, kuwaasi oo ay dileen ciidamada Israa'iil ama Yahuudda degan daanta galbeed. sidoo kale ugu yaraan 32 Israa'iiliyiin ah ayaa lagu dilay weerar ay Falastiiniyiintu fuliyeen ama iska horimaadyo toos ah oo ka dhacay howlgallada Israa'iil ay ka wado gobolka, sida lagu sheegay tirakoobyada rasmiga ah ee Israa'iil. waa hagaag Nabaha Cabdikariim Timacade aad baad mahadsan tahay. daawadayaal markan aynu eegno wararka la xiriira Gaza iyo xaaladdu sida ay tahay caawa. weli waxaa la sheegayaa Israa'iil habeenkii saddexaad oo xiriir ah duqeyn inay wado. maanta duqeymo culus ayay geystay Israa'iil. dad ka badan 50 qof ayaa lagu soo warramayaa in duqeymahaasi ay ku dhinteen tan iyo saaki hiirtii waxbari. dadka dhintay waxaa ka mid ah 14 qof oo la sheegay inay dhinteen iyo 30 kale oo ku dhaawacmay kadib markii ciidanka Israa'iil gantaal ay ku garaaceen goob ay ka socotay baroodiiq oo ku taal Baytalaahiya oo waqooyiga Mareykanka Gaza. ilaa caafimaad ayaa xaqiijiyay tirada dadka ku dhintay duqeyntaasi inay sare u kacday maanta oo kaliya ilaa 60 qof ayay gaartay. dhinaca kale ciidanka Israa'iil ayaa ku dhawaaqay inay bilaabeen howlgal dhanka dhulka oo xadidan oo ka socda bartamaha Mareykanka Gaza. warbixin ay soo saareen ciidamada ayaa waxaa lagu sheegay in howlgalkan ujeedkiisu uu yahay in la balaariyo waxay ugu yeereen aagga difaaca, isla markaas la sameeyo xariiq kala qaybinaya koonfurta iyo waqooyiga Mareykanka Gaza. sidoo kale ciidanka Israa'iil ayaa waxaa la sheegay in la wareegeen kontaroolka wadada Naajiriim, taasi oo muhiim u ahayd isu socodka gudaha ee Gaza. halkaasna waxaa ku sugnaa ciidamo ka socday shirkado gaar ah oo halkaasi heshiiska markii la gaaray lagu wareejiyay si ay u sugaan amniga ciidanka Israa'iil marka ka baxeen goobtaasi. ciidanka Israa'iil ayaa waxaa la sheegayaa sidoo kale in ay dejiyeen ciidanka Golani koonfurta Gaza. waxaana la sheegayaa in ciidamadan loogu talagalay halkaas inay howlgallo ka fuliyaan. ciidankan iyo kuwa kale ee Gafati oo loo diyaarinayo Mareykanka Gaza ayaa waxaa la sheegayaa in dagaaladii hore si xun loogu soo jabiyay. dhinaca kale wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil Israel Katz ayaa ku hanjabay in duqeymaha iyo burburka ka dhanka dadka Falastiiniinta ee Gaza ay sii xoogaysan doonaan, wasi hadalka u dhigaya oo ay noqon doonaan kuwo adag. warbixin laga helay warbaahinta Israa'iil waxay sheegayaan in weerarada socda ujeedka ay tahay in markaasi ujeedku uu yahay in markaa Xamaas lagu qasbo wadahadallada inay timaado, isla markaasna ay ka laabtaan gorgortanka si hadalka loo dhigay. macluumaadka sidoo kale waxaa ka mid ah telefishinka kanaal 13 ee Israa'iil laga leeyahay ayaa waxaa la sheegayaa in Netanyahu uu bilaabay la tashiyo ku aadan dib u howlgelinta dagaalka. waxaa kaloo wararka ka mid ah wargeyska Maarif Israa'iil ka soo baxa ayaa waxa isna uu leeyahay Israa'iil waxay qorsheynaysaa weerar dhanka militariga oo lugta in laga fuliyo Mareykanka Gaza. waxaana ujeedku uu yahay buu leeyahay wargeysku in duqeymo xagga cirka la qaadi doono oo lagu beegsanayo hogaamiyaasha Xamaas. ujeedkuna uu yahay in lagu qasbo Xamaas inay aqbasho qorshaha Witkoff ergeyga Mareykanka ee Bariga Dhexe. wargeyska Maarif ayaa sidoo kale waxa uu ka soo xiganaya haddii ciidanka Israa'iil gudaha u galaan Mareykanka Gaza in ay muddo dheer ku qaadanayso halka inay ka soo baxaan. waaxda amuraha dibadda ee Mareykanka ayaa caawar ay soo saartay waxay ku sheegtay in ay taageero buuxda Mareykanku ay u hayaan Israa'iil. waxaana la sheegay in ay si buuxda ula sanfan yihiin Israa'iil xilligan adag si hadalka loo dhigay. waxaana la sheegay in Mareykanku uu u arko xabajoojintan waa xabadan imika socota inay ka dhalatay weerarkii 7 Oktoobar ee Xamaas ay ku qaaday Mareykanka Gaza oo ay ku qaaday gudaha Israa'iil. madaxweyne Donald Trump ma doonaya baa yiri maalmo ama toddobaadyo xasilooni ay jirto oo kaliya, laakiin wuxuu rabaa xal waara in loo helo Bariga Dhexe. waa si hadalka loo dhigay. waxaa jirta la yiri fursad loo bedeli karo jiha cusub xaaladda gobolka Bariga Dhexe.
haddaba xamaas ayaa soo saartay war aad u culus telefishinka aljazeera ayaa goordhaweyta baahiyey bayaan ka soo baxay ururka xamaas bayaanka ayaa waxaa lagu cambaareeyey weerarka dhanka dhulka ah oo Israa'iil ay ka fulisay marinka Gaza oo lagu tilmaamay xadgudub cusub oo halis ku ah heshiiskii rasaas joojinta xamaas ayaa waxay ku adkaysatay in ay u hoggaansamayso heshiiskii xabad joojinta la saxiixay iyadoo ugu baaqday dhexdhexaadiyaasha in ay damaanad qaadi heshiiskan in ay qaataan mas'uuliyadda ka hortagga xadgudubyada Israa'iil bayaanka xamaas ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in ra'iisul wasaaraha Israa'iil ay cadaadis ku saaraan si uga laabto xadgudubyada laguna xisaabtamo wixii cawaaqib ah ee ka dhasha xamaas waxay si gaar ah u leecaysay hanjabaadaha soo noqonaya gaar ahaan tii ugu dambeysay ee ka timid wasiirka gaashaandhigga Israa'iil waxaana bayaanka lagu yiri shacabka Falastiiniyiintu waxay ahaan doonaan kuwa u adkaysta xuquuqdooda kula dhagan xaqooda waxaana fashilmi doona dadaalada lagu doonayo in si qasab ah dadka Falastiiniinta looga saaro dhulkooda xamaas ayaa waxay fariinteeda ku soo gabagabaysay dadka Falastiiniyiinta ma hajiri doonaan cidda hajiri doonta waa cidda timid halkan waxa kaliya u hajiri doonaan waxa weeye magaalada Qudus ee la haysto dadka Falastiiniyiinta waa tahay macluumaadkaasna intaas aynu ku ekayno haatan waxaynu soo gaarnay sheekadii ugu dambeysay ee barnaamijka aynu ku soo gabagabayn jirnay alaab waxaynu ku soo qaadanaa sheeko ka duwan sheekooyinka barnaamijka aan idinkugu soo gudbinay waxaan idin helay sheeko la yaab leh oo warbaahinta waddanka Shiinaha ay aad u hadal hayso baraha bulshadana qabsatay nin qaabilsan qaybta shaqaalaha oo shirkad laga leeyahay waddankaas Shiinaha laakiin aan la magacaabin ayaa waxaa la sheegay muddo dhowr sano ah inay u qornaayeen shaqaale aan waxba ka jirin lacagtoodina ku qaadanayeen mushaarkooda haddaba sheekadan aynu eegnay warbaahinta dalkaasi Shiinaha ayaa waxay sheegaysaa in ninkan shirkad arrimaha tiknoolajiyadda ka shaqaysa oo magaalada Shanghai ka dhisan uu qortay shaqaale fara badan oo beer abuur ah kadibna mushaarkooda uu qaadanayay waxa la leeyahay ninkan 2022 ayuu bilaabay arrintu way u socotay lacagtu iska qaadanayay laakiin arrinta la yaab kale waxay tahay magacyada dadka ayaa waxay noqdeen magacyo isku eg kadibna waxa la yiri qof kamid ah shaqaalaha kale ee shirkadda ayaa muddo dheer markuu arkay mid kamid ah oo lagu magacaabo Shin San inuu sanba fasax qaadan oo uusan xanuunsan marka wuxuu isweydiiyey warniyo ninkan la yiraahdo Shin San miyuusan xanuunsan 2 sano fasax ma qaadan ma xanuunsan waxba meel dan muusa yeelan kadibna qof kamid ah madaxdii kale shirkaddu la wadaago wuxuu yiri warniyo dadkan maxay ahaayeen aan maqnaanba hal maalin oo maalin kasta ku jira liiska Shiinaha waad ka warqabtay waa dadka adduunka ugu tirada badan la iska warqabo shirkadaas shirkadu laakiin waxay qaraxday markii la ogaaday 22 shaqaale ah oo aan jirin in ninkan qaybta shaqaalaha madaxda ka ah uu qortay oo lacag ku qaadanayay sheekadu waxay sii xumaatay ninkii markii arrintii u cadaystay waxa la yiri wuxuu qaatay 16 milyan oo lacagta yuanka waddankaasi Shiinaha waa lacag u dhigata 2 milyan iyo 200 oo kun haddaba markii la qabtay waxa laga helay oo kaliya lacag gaaraysa 1 milyan iyo 100 kun oo yuan ama 150 kun oo doolarka Mareykanka ah kadib waxa la yiri qoyskiisii waa orday waxay isku soo ururiyeen 165 kun oo doolar waa 1 milyan iyo 200 waa 1 milyan iyo 200 kun oo lacagtaas waddanka Shiinaha ah laakiin inta kuma filaan yiri lacagta loo baahan yahay waa 2 milyan iyo 200 kun kadibna maxay noqotay gorodda waxa loo geliyay 10 sano xabsiya iyo waliba 2 bilood waxa kaloo la yiri muddo 1 sano ahna waa la soconaya wariya ninkii reemudiga muxuu yiri war annaga ayaab aragnay waayahay hadda waa nin madaxa oo deema iska shaqaysto yani musuqmaasuqa iyo xatooyada mar uu kula gudoomaya waa tahay inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii qubaraha waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan uga xirnayn ku soo biir waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka waa inoo barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa nabadgelyo